baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay golaha xukuumadda ee dhawaantan la hor keenay kuwaas oo iskugu jira wasiirro iyo maareeyayaal magacyada xubnaha la ansixiyay ayaa waxa ugu horeeyay madaxweynaha cusub ee dowladda deegaanka Mustafa Maxamed Cumar madaxweyne ku-xigeenka Aadan Faarax Ibraahim wasiirka biyaha Bashiir Shaafi wasiirka maaliyadda Bashiir Dubad wasiirka madaxtooyada Xasan Daadi wasiirka waxbarashada Cabdilaahi Maxamed Muuse wasiirka caafimaadka Dr. Yuusuf Maxamed wasiirka beeraha Cabdiqaadir Iimaan wasiirka howlaha guud Cabdifataax Sheekh Biixi wasiirka ganacsiga Cabdiraxmaan Axmed Xasan wasiirka ka hortagga masiibooyinka Maxamed Cabdi wasiirka qurba joogta Xabiib Xaaj wasiirka xeer ilaalinta Cabdiwali Jaamac Ibraahim wasiirka xoolo dhaqatada Injineer Maxamed Shaale Isaaq wasiirka cadaaladda Mubaarak Sheekh Cumar wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Xasan Aadan wasiirka haweenka Ayaan Cabdi Shukri wasiirka warfaafinta Guuleed Cali wasiirka dhalinyarada Xasan Faarax Cali wasiirka dooxooyinka Axmed Deeq Maxamed wasiirka sayniska Axmed Naaji wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska Ilyas Abiib sidoo kale waxa la magacaabay maareeyayaal isla markaana la ansixiyay maareeyaha xafiiska xirfadaha iyo tababarada maareeyaha macdanta tamarta mudane Lada Cabdiwali maareeyaha wakaalada jidadka Sacaada Giire maareeyaha wakaalada dakhliga mudane Cabdilaahi Cabdi madaxdan cusub ee la magacaabay ayaa waxa aad ugu yar dumarka marka la barbar dhigo kuwii ku jiray maamulkii hore ee madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar badidood ayaa la sheegayaa inay yihiin dad siyaasadda deegaanka ku cusub una badan aqoon-yahano